وفرصة مهمة كني وكتابك قرآنك كريمك ودستور كينا وكلام رب العالمين وانا كتاب كينا waxa uu mudan yahay in lagu tartamo oo lagu kala dheereeyo jannatul firdaws al-aala hadaba waxay warbaahinta nolosha islaamku ay noo bilaabaysaa tartanka cod macaanida quraanka kariimka ka qayb qaado tartanka cod macaanida quraanka kariimka oo sanadkii labaad ay qabanayso warbaahinta nolosha islaamka waa tartan loogu talagalay in xufaad quraanka iyo waliba qof kasto quraanka si fiican u akhrinaya uu kaga faa'iideysto fursadaha iyo waliba hadiyadaha iyo jawaa'ista ay bixinayso warbaahinta nolosha islaamka tartanka cod macaanida quraanka kariimka oo sanadkii hore ay iba furtay warbaahinta nolosha islaamka ayaa waxa uu u dhacay sida tan walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna آذان الأنعام وترتن أي كسو قيب قلين لبيه صدن أرضي كواسو ككل السعودية لبيه صدن مركز هذا بالسنة كان ترتن كان عد معاني ذا قرآن كريم كا أو بلا ما يبشن لبعض وكدوية ترتن كي هوري ترتن كني وحا وكدوية هاي ترتن كي هوري ترى كقيب قلياشا ترتن كقيب قليا واي كبديهين كوي هوري سيدو كله tartankan waxa uu u dhacayaa si toos ah isagoo qofka ka qayb galaya uu hor fadhiisanayo gudida garsoorka xaqii tartankii hore uu ahaa hab online ah waa maxay ujeedka ugu weyn ee nu qabanayno tartanka cod macaanida quraanka kariimka ujeedka ugu weyn ee aanu qabanayna tartanka cod macaanida quraanka kariimka waa inaanu dhiirigelino xufaada quraanka kariimka iyo inaanu sidoo kale dhiirigelino qof kasto ehel ah quraanka kariimka ma doonaysaa inaad ka mid noqoto tartamayaasha ka qayb galaya tartanka cod macaanida quraanka kariimka ee bishan labaad ay furtay warbaahinta nolosha islaamka haddaad doonayso soo booqo xarunta warbaahinta nolosha islaamka oo ku yaala dhismaha fooqa jiciir ee galbeedka maqaaxida jiicaboorka ee degmada maxamuud haybi